bismillaahi raxmaani raxiim daawadeel kusoo dhowaada wararka ugu waaweyn ee maanta aan idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo shalay soo gaaray magaalada muqdisho ayaa la sheegaya inuu muqdisho ka wado kulamo siyaasadeed uu la qaadanayo madaxda ugu sareysa dalka sida wararka aan ku helayno socdaalka muqdisho ee madaxweyne laftagareen ayaa daaran sidii xoriyadiisa dib ugu heli lahaa wadaadka hore uga tirsanaan jiray al-shabaab ee hadda u xiran dowladda sheekh mukhtaar roobo cali abuumansuur madaxweyne laftagareen ayaa cadaadis iyo culeys siyaasadeed xoogan durbo kala kulmaya waxgaradka koonfur galbeed gaar ahaan beesha uu kasoo jeedo mukhtaar roobo oo ku aadan inuu ka shaqeeyo sidii loo soo sii dayn lahaa wadaadkan dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku eedeysay wadaadka inuusan weli si cad ugu dhawaaqin inuu ka baxay al-shabaab islamarkaana shacabka soomaaliyeed cafid ka weydiisto dhibaatadii uu qeybta ka ahaa ee shacabka loo geystay madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed ayaa warbaahinta u sheegay in ujeedka muqdisho uu usoo gaaray ay tahay howlo shaqo waxaana warar hoose oo aan helayno ay sheegayaan in xalay uu si gooni gooni a ula kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo weliba guddoomiyaha baarlamaanka oo arrimaha ugu waaweyn ee uu kala hadlay ay ka mid tahay arrinta mukhtaar roobo cali abuumansuur oo culeys siyaasadeed oo xoogan uu kala kulmayo waxgaradka koonfur galbeed gaar ahaan beesha wadaadkan uu kasoo jeedo